السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسن دلهانتين بوامر كلا يحمنتيني ورقتي ضوحي قرآن أو تضبط كهال مركز حتى شاشة التلفزيون كان يشمل التيتي برنامج كهلا وحيدين دادي ساني قواعد taalibaan ayaa qarka u saaran inay balaayiin dollar oo magdhawa ka dalbato Ingiriiska, Mareykanka iyo dawladaha kale ee ku lug lahaa dagaalka Afghanistan kaasoo socday in ka badan 20 sano isla markaana ay ku naf waayeen kumanaan reer Afghanistan oo ay ku jiraan dumar iyo carruur iyo dad aan waxba galabsan. Dalabka Taalibaan ayaa imanaya kadib markii ay la wareegtay guud ahaan dalkaasi. Taalibaan waxay ku boorin doonaan UK iyo dhammaan dawladihii ku lug lahaa dagaalka inay magdhow siiyaan Afghanistan. Waxaa qortay jaridda Daily Mail oo soo xiganaysay sarkaal u hadlay Taalibaan. dawladda Islaamiga ah ayaa ku boorin doonta Britain inay si dhaqso ah u bixiso lacagaha sida ay sheegayaan wararku, waxayna Taalibaan rumaysan tahay inay UK hoggaansami doonto dalabkooda. Nuur Maxamed Mutawakal oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee Afghanistan ayaa sheegay Britain waxa ay diyaar u tahay inay siiso magdhow dagaal waan soo dhaweynaynaa. Sidoo kale wadamada dagaalka ku lug leh waa inay bixiyaan magdhowgan. Inkastoo Mutawakal uu muuqday mid kalsooni ku qaba in UK ay bixin doonto magdhow, haddana ma cadda kiisku. xubinteena labaad iyo barnaamijkeena wargeyskada waxay qoraan. wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray maqaal ciwaan uga dhigay wadooyinka carada lagu dajiyo. qormada wargeyskan ayaa soo baxday 9 bisha Oktoobar sanada 2021. dadka degan magaalada New York ee cariga dalka Mareykanka ayaa markaliya ka warhelay barkimooyin midabkoodu yahay huruud kuwaas oo lagu taxay dariiqyada magaalada oo aan la fahmin sababta ka dambaysa ee loo sameeyay. waxaana la baahiyay wararka ah in barkimooyinka loo sameeyay si qofka cadhaysan uu fadhi la dhaco kadib marka uu daalaa cadhaduna ka baahdo iska seexdo halka uu ku kicilaa falalo naftiisa ama nafa kale ku waxyeelayn lahaa. waxaana loo soo jeediyay bulshada inay ku cadho burburaan marka ay marayaan dariiqyada. dad tiro badan ayaa sawir laga qaaday iyagoo durbadiiba fadhi la dhacaya barkimooyinkan isla markaana ay wajigooda ka muuqata cadho xooggan. intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada waxaan la socodsiinayay anigoo Aydman Muuse. tan iyo intaan dib u kulmi doona amaano Allah kulanti dambe oo xiiso leh.